kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudan meel kasta oo nagala socotaanba ku soo dhawaada war wixii naga soo gaadhay dalka gudihiisa iyo dadweynaha intiisa kaleba oo idinkaga imanaya stuudiyaha koobaad ee telefishinka madaxa bannaan ee bulsho TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa haddii Allaha uu dilidmo warka waxaad la socodsiin doonaa anigoo ah Maxamed Cali Bakeeri qodobada wararkayga habeenkani caawa ugu doorka roona waxa kamid ah caasimadda Soomaaliya ee magaalada Moqdhisho ayaa munaasabada Ciidul Adha awgeed si mug iyo miisaan leh looga ciiday qaramada midoobay oo difaacay markab lagu qabtay xeebta Mombasa ee wadanka Kenya madaxweynayaasha wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa markii ugu horeysay muddo laga joogo hal sano ku kulmay magaalada New York daawadayaal kuwaas waa qodobada warka ugu doorka roole iminkii haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan caasimadda Soomaaliya ee magaalada Moqdisho ayaa munaasabada Ciidul Adha si mug iyo miisaan leh looga ciiday sidoo faafaynta warkaasi inoogu hayo wariyaha nooga soo warama magaalada Moqdisho maxamed cabdi cismaan fardhere dadka reer Moqdisho oo ay farxad weyn ka muuqatay wajiyadooda ayaa waxa aan la dhaxmaray codbaahiyaha bulsho TV iyagoo oo dareenkooda ku aadan maalinta ciidda ka hadlaya عيد وناكسن سنة كاسن إنسان ciidan iyo ciidii hore farqi inta la baa u dhaxayaa isleedahay markii aad eegto la ciidan iyo ciidii hore farqi u dhaxayaa ciidan kale inay ka sii jiraan ciidii la soo dhaafay tan beel ka sii tahay xagga xagga marka xagga socodka waxaas leedahay ciidda waa macnaha isbadanta saasana jecelnahay ciidaha soo socdo siyaasi si fiican ah mid Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam sanadkan waa sanadkii waxaan leeyahay ku badan laga dhalko waxaan la joogaa mid ka mid ah bajaajleyda magaalada Moqdisho oo isaguna maanta si fiican ciiday bajaajkiisu ciidaya bal walaal magacaaga ku bilaabay waxa la yiraahdaa walaal Kurshin Cabdullaahi weeye waxaan leeyahay dhamaan Soomaali meel kasta joogta ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bixayr sanadkan sanadkiisa gaar barwaaqo bartash dhamaan wa salaam ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta ilaahay waxa uu baryayaa inuu isku kala qalbigooda jibal ee ka heshiiya insha Allah in la helo nabad ilaahay nasiib dhamaan saadaan la ummadda Soomaaliyeed hore ciidan farqi inta la baa u dhaxayaa isleedahay qodobada waxyaabo badan in cadi ahaanta farqi inta la baa u dhaxayaa والله ما شاء الله يا magaalada way wanaagsan ما شاء الله يا loo shaqeysana waa faraxsana ma sha Allah si wanaagsan oo soo dhameysay ciidena marka waxaan ilaahay ciid wanaagsan dhamaantiin salaamaya qalbiga xaano dhamaan alxamdulillah faraxsan magacaaga ku bilaabaya halkan yaad ka salaamaysaa محمد إسماعيل waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhamaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bixayr ciid adxiyada daraadeed waxaan ku muslimiinta fahamkayga asxaabtayda maxaad leedahay farqiga u dhaxeeya markii caasimadda iyo meelo kale aad ku ciiday والله ما شاء الله لبدو aad barnaamij ummadda muslimiinta shacayb oo soo gudbinayso waana jecelahay markaan ku ciiday deegaanada markaan ku ciiday caasimadda Soomaaliyeed baan ahay qadiyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliyeed hor soo dhow ay halkan yaad ka salaamaysaa dhamaan bulsho أنا ما أنت شعور في هذه المناسبة أنا ما يعيد ما عقلنا عن حسنا والجد مع ميشة bulsho TV وحالة تسلم دمان مسؤولين الصوماليات وحالة كل عام مناسبة أنا حد مثلا قناة تيفيga dhamaantood waan salaamayaa dhamaan saxaafadda oo bulshada waxda warbaahinta waan salaamayaa wasiirka maxamed xayir maareeye wasiirka warfaafinta dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bixayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhamaan saxaafadda oo bulshada waxda warbaahinta waan salaamayaa wasiirka salaamayna wasiirka warfaafinta
كمان وحسلام يا مدحوينها يا مدحوينها وسلام يا مدحوينها حسن محمود وسلام يا مدحوينه برلمان كل وزيرadu inoo soo kaagudbuwaayeen meelaan ku soo narnawaan weynay ciidanku wadooyinka way xidheed iyo albaabadii arrintaas maxay ku dhacday madaxweyne yaallan lahayn dadka madaxweynaha u ahayd ee Soomaaliyeed saasar madaxweynaha ku leeyahay dhanka kale had iyo jeer waxa dhacda dad meel ku wada nool haddana aan iska warqabin waxa aan booqday salaada ciida dabadeed barakacayaal ku dhaqan degmada hodan ee magaalada Muqdisho dadkan oo ku jira kaam lagu magacaabo irshaad ayaa waxa ku nool dadweyne aad u fara badan balse markii aan goobta gaaray ayaa waxa aan la kulmay qaar kamid ah barakacayaasha anoo ka waraystay bal sida ay maanta u ciideen maadaama ay yihiin dad xataa aan haysan hoy wanaagsan tan dhinacaniga taagan maama adoo magacaaga ku bilaabaya bal maanta dareenkaaga ciid bal ka war ciid xukuman inamo wana kuma haysan meesha kaamka oo ku rafaadsan laan ba meesha ku jirto waan ugu qaadan meesha ku rafaad waxna taa kuleeyna maana wax ciid iyo waxa idinku caawiyo oo hadii ay tahay dawladda iyo hadii hay'ado kale oo wax aad ku ciideen ma jirin miya waxa nagu taageer maar wax nagu nasiyan ma wax la soo taageero ma waan gartay kaamkan imise ciidood baad ku ciideen ciido badan aan ku soo ciiday kaamka ku soo jirbo meesha waxay meel daboolma ibro qashina iska yaalaan ama haa waa mid kamid ah aabayaasha Soomaaliyeed oo isaguna kaamka ku nool aaba magacaaga aad ku bilaabaya bal dareenkaaga ciida maanta iyadoo aad kaamkana waad ku sugantiin ciidayna oo si loogu talagalay ciida kuma ciidayno kaamkana dhowr sano ayaan deganahay hasa ahaatee mataqaanaa waxa taakuleen ama oo mucaawino oo nabtana aan ku helno midna ma laha waan gartay shalay ilaa shalay madaxda iyo dawladdu iyo dhamaan culimadu waxa ay dadka ku boorinayeen in dadku ay istaakulayaan wax taakulo oo aha ilaa haatan idin soo gaadhay ilaa shalay ma jirta miya wararka waa maqlayna laakiin hadana wax soo gaaray ma laha waxna soo gaaray waan gartay kaamkan imisa jeer baad ku ciiday gudoomiyaha kaamka irshaad ay barakacayaasha aad u tirada badan ay ku nool yihiin bal gudoomiyaha ugu horeyn ku soo dhawow bulsho TV bal dareenkiina ciida iyo dadkan aad gudoomiyaha u tahay ee kaamka ku sugan sida ay diideen bal nooga warbixin فرحت كبيرة وحاول بدل ما يستان حوله بعض لو كان مساعدة سيسمع إيش أو ما رأيت إلا يجرو حكى maalmahan culimada iyo madaxda Soomaalidu waxay maalmahan la isku dhiirgelinayay in la istaakuleeyo oo kan waxaysan wax la siiyo ilaa haatan wax gargaar ah oo soo gaaray oo aad ciida wax ka dhigataan ma jira miya horta waxa kaamkan soo biyo ku jira labada waatan horna u aragtay haddana waxa yaraatay qaxootiga soo gaaray isha aad ku arkayso oo dadka isku jiifo ilmahooda isku meesha ka wafiyaan ee ka dhabay waxa yaraatay oo taakulay oo hadda dadweynaha oo soo gaaray oo ganacsiga jawiga guud ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ka bedelaa sidii hore waxaana socodka gaadiidka shacabka loo diiday in ay maraan wadada aada madaxtooyada Soomaaliya iyadoo kaliya ay marayeen baabuurta gaashaaman ee dawladda federaalka ee Soomaaliya si kastaba ahaatee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa laga xusay maalinta ciida maxamed cabdi cismaan maxamed fardhere bulsho TV magaalada Muqdisho